sheeko yar oo la yiraahdo saaxiib caadi iska dhig saaxiib caadi iska dhig waxay ahayd sheeko ku saabsan 5 wiil oo walaalo ah 5 wiil oo walaalo ah waxay hooyooyinkooda kala duwanaa waxay ahaayeen kala baxbay ahaayeen waxay deganaayeen meel abaar ah waxay ku tashadeen inay u guuraan barin barwaaqo ah markay sahamiyeen baa waxa u yeeray hooyooyinkood mid walba dhabarku ka taabtay wuxuu ku yiri hooyo meesha loo guuri doono oo barwaaqada ah waxa idin ka rabnaa inay barinka ugu fiican aad muxuu ahaay noo sahamisaan waxaana waliba idin leeyahay bay tiri hooyo barinkaas waa inuu 4 shuruudood lahaada waa inuu san ahaan barin diq ah oo sanadkoo dhan la wada deganaa waa inuu yahay barin ramaas leh oo xooluhu markay habeenkii soo kacaan xooluhu ku mayracdaan waan hooyo inay leedahay geed weyn oo la harsado xoolaha iyo martida iyo noo harsato marka sheekada inta aanan gunaanadkeeda gaarin waxaan jeclaan lahaa wax badan baa la fadhiyay dadku iska aaminsan yahay laba qof oo kasta oo is ag fadhida inay isku soo jeensato oo dhoolaha cadeyso oo yiraahdaan saaxiib caadi iska dhig saaxiib caadi iska dhig وما سنتهين عاروا ميكروفون كنا نكشف مدحوين الشريف حسن إيه مدحوين عبد الولي عادي اسكما دقي ولي